waxaan soo dhaweynayaa xisbiga mid qaran aad iyo aad ayaan waxaan ugu faraxsanahay intii iga horeysay siday tiri xisbiyada maadaama xisbiyo hore aan ku jirno xisbigana aad iyo aad baan u soo dhaweynayaa wilcaada walaalkay reer United States oo Mareykanka xildhibaanadiisii baan nahay matalayay baan ka mid ah waana ka xumaay hadii maaragtay aan ogaan lahaa runtii waxaan u ballamin lahaa xildhibaanada 22 ah aniga waxaan ka nimaanay beene marka 20 kale way imaan lahaayeen meesha marka waa ka xumahay professor next time marka sameynaysid ayay ku imaanayaan xildhibaanadaadana marka ayna soo dhaweynayaa waxaan kaliya oo aan rabaa inaan inta yarta ku sii kabo waxa la isla raacay halkan in ay dawladdu ay tahay waqtigii ay u baahnayd hiilka Soomaalidu ay u baahnayd hiilka oo soo bilaadankeena dadkeena meeshan jooga maalin walba qaraxa ka dhacay shalay baa ugu dambeysay ilaa 40 dhaawaca 20 dhintay wax isweydiinaya ma leh kaliya dawladdu waxay leedahay dabagal baan ku jirnay marka iyo maaragtay waa laga gaaray iyadoo 50 qof dhinteen marka maanta waxay u baahan tahay haday ahaan lahayd dhinac amni iyo haday ahaan lahayd dhinac midaynba waqtigii Soomaalida ay soo loo istaagi lahaa professor exactly maanta ku soo beegmatay waxaan aaminsanahay in momentigii ugu fiicnaa ku soo beegmatay intii uu beena ka yiri ayaan aaminsanahay waxaan rabaa kaliya inaan halkaan ka sheego anigu waxaan ahay hooyo waxaan ahay gaba dumarka inkastoo aan waxbana loo ogolayn markaan qabiilka ka soo baxayna manaag baan matasho baan ku soo baxnaa markii oo hadda waad aragtay 68 dumar ah ku jira baarlamaanka 68 kaas waxaan u mahad celinaynaa madashii la sameeyay oo odayaashii dhaqanka sanka laga soo galiyay cidna rabtay ma lahayn marka saasaan ku taaganahay marka laakiin haddana inta wiilka nimanka iga horeeyay ay ka hadleen wax aysan ka hadlin ayaan rabaa inaan taabto Soomaaliya way afduuban tahay aniga waxaan dhahayaa way afduuban tahay 69 waa la qabsaday oo waxay ahayd dawladii inqilaabka ku timaaday exactly tii oo kale ba hadda ku socota sanad iyo dhowr bilood baa haray sanad iyo dhowr ka bilood 6 bilood miyaa soo sanad iyo 7 bilood in aan xataa la sugin ee la xisaabtamo ma dhahayaa laga qaad dadkii labada goor mooshinka ka keenay baan kamid ahaa madaxweyne Farmaajo markii horena waxaan aaminsanaa dadkii dhahayay 30 sano iyo 40 sano qurbaha ku maqnaa wadan maaragtay dimuqraadiyo joogay adiga waa kamid tahay waxaan u maleynay horta inaan nin diaspora ah uusan welcome ka ahayn Muqdisho aad iyo aad baan uga xumahay inay taas dhacdo sababta waxaan ogahay dad badan oo fiican oo maskaxdooda nadiifta inay jiraan laakiin welcome dama kama aha Soomaaliya dhan ninkii professor la dhaho ninkii la dhaho experience uu leeyahay caburin iyo in darashadaha uu ka soo dhaco anigu waxaan ku dhashay Garowe waxaan xasuustaa 1979kii 80gii aabahay 3am la baxay 4 years meeshaan ku xirnaa exactly tii oo kale ayaan marxaanti ka ahaa Cabdiraxmaan Cabdishakuur in fikir kaliya darashadaha intii loola daatay nacam waa la dilay isaga waxa la maleynayay wuu dhaawacmay waa ogeydeen marka tii baa horta Muqdisho ka jirta marka waana ka xumahay anigu xildhibaanada cusub baan ahay dadkii aaminsanaa baan ahay in ay isbedel ay keeni karaan laakiin waan qasaarnay runtii xisb maxaa la dhahaa baarlamaanka tobnaad waa baarlamaankii ugu liitay waxaana koosgareeyay waa xukuumadda Farmaajo waa sababta xataa ma hadli karno nima bulburuuf wadan magaalada ma maro anagu masaakiina bulburuuf wadan baan nahay ma baxo magaalada ma kala aqaan والله مقدشة ما نقول لكن ما بكلا أقانبه مركا بروفيسور وحن كله يسود وو كلية ما أنت وحي مريسا الصومالية أنتي وفرماج مدحوين فرماج أنا احترامية بانو احترامية مدحوين هيك لكن قبل الذي وجي ماذا أو السن وهو ذا بربرية أنتي كلنا وهو ذا بربرية يا وكسعدا شو بلان وقت ما أنت ماشي مريسا هيل بيقف كستو الصومالية وجبها أنت بروفيسور أكمل تهاي هيل بيو بانت بطلان دوري لبعتن سنة شرتي إني جرجريرس هذا قرحي لقى كدعي بوساسو سودوسو سعودي وحو صاقلي في الهرجيسة محل دها في الصومالي I'm sorry معايا إن منكي محل دها روضن كي معها قدر أسكري جيبات شوجا إذا ماذا مركا هرتا هيل بي صومالي وباهن تهاي بروفيسور
waqtigii waxa aad ka timaadayna oo xisbigaagu uu yimaaday waqtigii inta u tagtid aad dhihilaad waa istaqaani farmaajo u maleynaya 40 sano isla joogteen waqtiga dhihilaad niyo wadankii waa ku fashilmatay aan la lisa kula shaqeyno marka aad iyo aad baan ku soo dhaweynayaa waana mahadsan tahay anytime oo insha Allah u baahan tahay inaan garabkaaga soo istaagno isku meel baynu ka nimaanay waan ku garab taaganahay waan salaam calaykum